وعصرات ديارة مريتانكا مناسبة ستحية ستنقولنا ستابية توقع مي عندما قلت سلسة مرونة السودان لا يكرا دوين أعطينا الشامعة هي السكولة والرولة كل شيء يكرا دوين مدى الملحوية إيهو قلوة وصارة غاتيو sanad guuradii 3 ee ka soo wareegtay markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland la soo noqotay madax bannaanideedii ayaa si guud looga xusay deegaanada tuulooyinka degmooyinka iyo gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdaas oo ku astaysnayd sanadii 1991 bishii May 18 magaalada Burco lagaga dhawaaqay inay jamhuuriyadda Soomaaliland dib ula soo noqotay xorriyadeedii fagaaraha loogu dabaaldego maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May ayaa waxa gaadda ciyaar iyo gaardis ku maray ciidamada qalabka sida ururada bulshada ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaybaheeda kala duwan ee ku sugnaa caasimadda iyo bulshooyin caalamka ka socda oo Soomaaliland ku sugnaa gaadiid gaashaaman iyo cududda ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madasha lagu soo bandhigay madasha xuska 18 May lagu qabtay waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku wehelinaya ka qaybgalka madashan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada xeerlaaliyaha guud ee qaranka madaxweyne ku-xigeenadii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland soo maray xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida gudoomiyaha iyo murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani safiirada beesha caalamka u fadhiyay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wufuud Soomaaliland u soo casuuntay inay ka qayb galaan casuumadan haween ganacsato qurba joog iyo marti kale oo Soomaaliland horumarkeeda jecel madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland xuska maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May awgeed mudane moolayaal waxaan aad u hambalyeeyaa dhammaan shacbiga Soomaaliland meel ay joogaanba dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland da' kastoo yihiin rag iyo dumar meel kasta ay joogaan bishii u dambeysay wadaninimada dal jacaylka iyo difaaca dalka iyo horumarkiisa ay u jecel yihiin ay isu abaabuleen ay u muujiyeen nacabka Soomaaliland awoodooda iyo xoogooda iyagoo tusaaya in Soomaaliland tahay 3 jir waa marka qofka bini'aadmiga maskax iyo muruq ugu adag yahay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa meelaha joogtaanba gaar ahaan da'yartii dhalatay intii dalka la xoreeyey dareenkooda aad iyo aad u kacsanaa waa ka mahadnaqaynaa haddaan nahay odayaashii dhammaantood maanta 3 sano ka hor baa dalkan dib loo xoreeyey marna waxaan hambalyeynaya dhammaan shacabka Soomaaliland meel ay joogaanba guud iyo dibadba waxaanu qabsanay waynu qabsanay walaalayaal waxa inoo yaalla waxa inaga dhiman inaynu qabsanno waxaan ku talinayaa dadkeenu inay ka baxaan maskaxda ah hana la caawiyo ilaahu waa caawiyo aad buu caawiyo waxaan doonayaa Soomaaliland aan tuugsanayn qayrkeed ee tabcanaysa oo tartamaysa ay doonayaan mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay sooyaalka Soomaaliland ay soo martay iyo guulihii ay ku talaabsatay 1960 Juun Soomaaliland qaadatay xorriyadeeda dhowr iyo 40 dawlad baa ku ixtiraafay oo soo hambaliyay 26 Juun ka bacdi waxa fariistay golihii baarlamaanka ee Soomaaliland halka la yiraahdo goodirka iyagoo oo ka duulaya jibadii bariga jirtay ay had shanta Soomaaliyeed in la isu geeyo waxa Soomaaliya ku hadda ay qaran ula noqdaan oo lagu soo urureeyay oo shanta meeloodba ay Soomaaliya degan tahayba ay jibadaas ka wada socotay Soomaaliland oo ugu hor qaadatay xorriyadda waxay ka dhabaysay balantay Soomaaliya ku balantay ee ahayd in la isla doono shantii Soomaaliyeed sidaa darteed iyada oo aad iyo aad u qadarinaysa ololaha Soomaali jacaylka ah dhibaatada u badan iyo martida u badan iyo halganka u badan iyo dhaqaalaha u badanna la hubo inay ahayd tii Soomaaliland u hoosaytaa ayaa go'aan ay gaareen baarlamaanka ay leeyihiin
وإن maalinta walaaladeen kowda Juulaay ay qaadanayaan xorriyadda aan la midownaa wixii kala bahay noo dambeeyeen hal xeer bay gudbiyeen oo ahaa xeerka midnimada sida lagu midoobayo labada dal xeerkaana way sii qaadan oo diyaaradda raacana waa u geeyay qolada talyaanigu gumaysanayay waxay kowdii Juulaay markii la isu tagay xagga ay xaggaaba bay igeen labadii baarlamaan bay isku dareen gudoomiyihii baarlamaanka waxaa loo doortay ninka Soomaaliland dirqare isla habeenkii waxa la dhaariyay madaxweyne ninkii la oran jiray Aadan Cadde dhowr maalin ka bacdi dowladdu soo dhisay Aadan Cadde dowladdaasi waxay ka koobanay madaxweyne ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo 14 minister 14 minister saddex baa Soomaaliland laga soo yuubay waa cad quran 12 wasiir labadii taliya ciidanna waxa qaatay qolada koonfureed caasimadiina waxa qaatay Muqdisho dowladii dhammayd ee Soomaaliland qaybtaas ah maalintaas oo bilaabmay guul iyo caro iyo dareen ka dhashay halka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa fariin adag u diray dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya waabay ka sii dartay koonfuriyo hadda ama saddex kaas oo intay geysatay ee cunaqabatayn leh ee dhaqaalowdiida ee la dagaalan siyaasi ah malaha hadday nuclear hayaan Soomaaliland ku furahay carada qabaan garan maayo meel ka keenay saddex kaasa ka daran koob goor waxay sameeyeen sagaal shir baa la galay oo wada hadal ah muddo 10 sano ah mid walba wixii lagu heshiyo waa ka baxa kuwii dambeeyay labadii dambeeyayna isaaf garawaa iyo fashil bay ku dhawaadeen waayo Soomaaliland waxay la shirtaysay waxaanu nahay dal xorriyadiisii qaatay inaga idinkaana ka marxaatiya dadnaad inaga isugu dhow oo isku Soomaaliya haddana jaaro wax wadaagna Soomaalidu Talyaanigu waa idinku koow noqotaan inaad marxaatiga furtaan oo Soomaaliland ixtiraaftaan wax kale oo Soomaaliland maraya ma jiro muddo kasta qaato iyo wax kasta oo qaado kaarmo ku xilay mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dul istaagay isfahankii heshiis ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya dhexmaray ee iskaasiga ku dhisnaa inuu hirgeliyo sida ugu dhaqsaha badan haddaba dalka Itoobiya oo xadka u dheer la leeyahay oo dawladdu weyn oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba aan siyaasad wanaagsan leedahay waxay ku dhiiratay wixii idinku ka maagteen oo ah Soomaaliland saddex sano waa la macaamilaynay waxay u qalantahay la aqoonsado annagu waxaan soo jeedinaynaa inaynu wax iswadaagsano idinkuna saldhig ciidan siisaan oo badeed annaguna aanu aqoonsiga Soomaaliland kow ka noqono taasina ku sheegayna waa diiro shalay ambassadorka ninka aan joogay kansalka ahaa ambassador maxalliga waa talaabo horumarineed oo lagu maadnaqayo dowladda Itoobiya inay qaadayso wixii ay balan qaaday ee iskaashiga ahaa dowladda Xasan Sheekh waxay adduunka ku dhaga barjaysay ereyga ah haddii MOU waa la saxeexo oo lagu heshiiyo waxa la xabsaan ku hadda dhalinyaradu rag iyo dumar jihaad bay gelayaan oo dowladda Itoobiya ee cadawga ee gaalada ay la dagaalamayaan sidaa darteed shabaab xoogaysanaysa mandaqadana qalaasay ayay noqonaysaa dad badan oo dowladaha waaweyn arrinka aad iyo aad u shaqo waxaa fashiliyay markii Xasan Sheekh uu gaziiro ka lahaa iyo idaacado kale oo uu ka tarrog lahaa in uu ogol yahay Itoobiya in dal ay karaysato bad Soomaaliya laakiin waa aniga inay soo marto idaacado lagu ka sii daay gaziiro ka dhigsan waa gaziiro soo ka hadlay wax la yaab leh war minku waa nafti hafar dalka oo xukumo ee uu ka siinayo badda ama ka kareeyo dowlad kasta oo dowladaha waa kale horta banaadir ma xukumaa baa isweydiin wuxuu ku daray inuu safiirkii Itoobiya ka eriyay xaq isagoo Itoobiya uu ka qabsatay Soomaaliland waxaan leeyahay heshiiskaas waa hirgelaya dhawaan haddii aan leedahay soo dhamaaday baa ka doontaan waa huwa muddada uu qaatay waxa weeye muddada ay qaataan heshiisyada culus oo dhan waxaa loo baahan yahay in dhinac waliba uu iska ilaaliyo waxa uu saxayo ay garyaqaano badan oo caalami ah caalamka sida xeerarka caalamka ee lagu bixiyo sabiyada waxa lagu heshiiyo
sida lagu heshiinaya cid waliba waqtiga baahan tahay iyo aqoon haddii aan la yidhaahdo xaggeena inta badan way ka dhantay diyaargarowga farsamo iyo sharci dhowaan haddii aan la yidhahdona waxaa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya markii uu hirgelayaana uu hirgelayaa heshiiskaas madaxweynaha ayaa iftiimiyey qaabka doorashooyinka loo gelayo doorashada ku qablamiyo qab jacayl bisal siyaasadeed فرحانته وكاين علينا إيه هذا الكل أنت إنه بدو وحينا هم هذه حسبي وضرنا إلى فريق من الحديثي بدويه يوم مرشح تبا شايا والله يا رأس إنه بدو حد الله وحده وحافظ ريا حتى لا ترتبوا وحكي صور عيار لأنه هاته تيلا بقى فوق البوليسان حدي وحرات ترتبوا ومرحلات الرات ترتبوا مثل ما البوليسان لا موجود البوليسان معي أنا يا عبد الرحمن وأنا أظن وضعك ده تقلق كأنه كير رجعها ها هني يوم بوضع بيوشي وأنا فلان هو هذا تدخل هنا أنا مغلية كور مدحونها جمهورية سوماليلاند waxaa madasha hadallo kooban ka jeediyay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland dalka gudihiisa iyo dibaddiisa maalintan oo ah 3 guuradii la soo noqoshada xorriyadda ummadda reer Soomaaliland waddan dheer baa loo soo maray inaan halkan maanta taaganahay dardaarankaygu waxa weeye bahashii qabyaalada ahayd xalkahay goosatay qabyaalada iyo dawladnimada meel ma wada degaan bahashaa la iska daayo xisbinimo ha lagu tartamo waxaan kaloo soo jeedinayaa xisbiyada qaranka iyo ururraba ha ku tartamina qabyaalad xisbinimo ku tartama jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku faanaysaa waxay qabsatay nabad ay kaliya dhisatay dawlad ay kaliya dhisatay ciidan ay kaliya dhisatay oo ah kii imaka in hormaray urur bulsho oo matalaya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hareeraha ka taagan jamhuuriyaddan Soomaaliland ee barakaysan jamhuuriyadan dib u noqonayn jamhuuriyad shacabkeedu ay ilaashanayaan oo ay daafaha ka taagan yihiin waxaan adduunka inta badan laga helin oo tusaale u soo qaadanayo mandaqadan geeska Afrika in madaxweynayaashii isbedelay si nabada oo ay raali kala yihiin ay sareer fadhiyaan oo ay qarankooda dhisanayaan Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bartamaha caasimadda Hargeysa